بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. halkan waxaan rabnaa kusoo koobno waxyaalo badan oo la xiriira soomka. Marka hore waxaan ku bilaabanaa waxyaalo dadku aaminsan yihiin soomka inay jebiyaan balse aysan jebin. Waxaa ka mid ah qof dhiigga intuu u shubo qof kale soomku ma burayo. Qubeyska qofka qubeedu caadi u qubeysto soomku ma burayo. Adayga kama burayo. Candhuufta qofka candhuuf hadduu laqo oo kale kama burayo. Cunid ama cabitaan aan loo qastin oo kale in sidoo kale matag qofka soo dhaafay janaabo qofka uu ka imaatay asagoo hurda maalinkii waaga oo qofka ku barya asagoo janaabo qaba. Intaasba qodobadaas waa qodobo dadku waxaa ku wareeraan sida asalka ama soonka ma buriyaan. Waxyaalaha soonka jebiya ayada waa la yaqaanaa waa inaad cunto ama cabtid maalinkii jimaaca maalinkii matag kas lasaga keenay darbada nafaqa oo qofku qaatay darbada nafaqa leh oo qofku qaatay shahwada oo qofku iska keeno si kas ah caadada iyo xaydka dumarka haddii uu diinta ka baxo asagoo sooman haddii uu waasho asagoo sooman waxaas oo dhan waa waxyaalaha buriya soonka waa waxyaalaha soonka ajirkiisa nusqaamiya waxaa ka mid ah xanta qofka cayda isku dirka beenta indhaha oo meel xun qofku eego dhagaha oo xumaan uu ku dhegeysto khamaarka oo la dheelo dagaalka waxaas oo dhan waa waxyaala ajirka nusqaaminaya. Waxyaalaha sare u qaada ajirka soonka waxaa ka mid ah quraan badan inuu qofku akhriyo salaadaha inuu tukado taraawiixda tahajudka wanaagga qofku maaragta in la sfaro sidoo kale dariiqa inaad dhibka ka qaado wixii dariiqa dhib inaad ka qaado indhaha oo la laabo carabka oo la xakameeyo masjidka oo la camro farjiga oo la dhowro waxyaalahaas waa wax ajir kor u qaadayo. Soonka marka qaar qofku waxyaalaha uu ku afuri karo waxaa ka mid ah inuu yahay musaafir oo kale waa loo fasaxa oo marka qaar u haystaa inuu xanuunsan xanuun daran inuu qofku sidoo kale u cabsado ilmaha ay nuujinayso hooyadu midka caloosha ku jira inuu cabsato waxaas dhan waa la soonku macnaha markuu u bannaan yahay ama qofku afku afuri karo waa